Gubashada mid ka mid ah magaalooyinka ugu dhaqaalaha badan dalka Mareykanka. Dab xoog leh ayaa weli ka soconaya magaalada Los Angeles ee gobolka California dalka Mareykanka. Waa gubashadii ugu darneyd uguna waqtiga dheer taariikhda gobolkan California. Dabka ayaa saameyn ku yeeshay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Los Angeles. Magaaladan Los Angeles waxaa degan ilaa 4 milyan oo qof. Waa magaalo aad u camiran, bulsho badan, dhaqaale badanna uu ka soo xaroodo. Waa magaalo ay degan yihiin maalqabeennada Mareykanka, qaar ka mid ah fanaaniinta caanka ah ee dalka, jilayaasha filimada Hollywoodka iyo ganacsato bilyaneer ah. Waa magaalo qiimaheedu aad u sarreeyo dhanka maadiga. Kadib dabaylo xoog leh oo ka dhacaya magaalada, waxaa sahlanaatay gubashada kumanaan dhismooyin lagu dhisay malaayiin dollar, gawaari qaali ah iyo goobo loogu talagalay tumashada iyo cawayska. Magaaladan waxaa degan dad jeebkoodu ladan yahay, kuwaasoo isugu jira jilayaasha filimada iyo fanaaniin caan ah. Waa magaalada ay ku taalo halka filimada lagu jilo ee loo yaqaano Hollywoodka. Tan iyo bilowgii dabkan ka holcaya magaalada, waxaa ku naf waayay ilaa 25 qof. Dhismayaasha ku burburay magaalada waa in ka badan 12,000 oo guri. Sidoo kale waxaa jira gawaari tirabeel ah oo looga cararay jidadka magaaladan, kuwaas oo ugu dambeyntii dabku leefay. Wadarta guud ee khasaaraha ka dhashay dabkan waa 150 bilyan oo dollar. Waxaana maalmahan baraha bulshada qabsaday sawir ka muujinaya burburka magaalada Gaza iyo magaalada Los Angeles siday isu shabahan ama isugu eg yihiin. Maalmo ka hor intaan dabku bilaabanin, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu bariga dhexe ka dhigi doono cadaab holcaysa. Kadib hadalkaasi waxaa la arkayaa magaaladan oo gubanaysa. Waxaa ilaa iyo hadda loo diray dabdamis gaarayo 7,000 oo shaqaale iyo diyaarado rusheynaya holaca. Laakiin Mareykanka oo ah dalka ugu dhaqaalaha badan adduunka, waxa uu awoodi la'yahay daminta dabkan magaalada ku sii fidaya. Si guud ahaaneed dalka Mareykanka waxaa sanad walba la arkaa musiibooyinka dabiiciga ah sida duufaanada, dabaylaha iyo dabka. Laakiin tani waa midii ugu darneyd uguna khasaaraha badneyd gobolkan California iyo guud ahaanba dalka Mareykanka.